سؤال شو حوالي كبتي سؤال بدل لا يرد أيدينا هديت هاي مالها على كل ما يسوشنت وقع أما هديت هاي السؤال عادي لا يرد كل ما نوحلو يقالوا العملة الافتراضية أما virtual currency وحلو يقالوا عملة وملينا يقالوا كلمة وعمر الله استعمال وحده كلا جبرايو لكن انت سمعت استعمال يومينها على جبر الانترنت وحده المال وحاول عن بيتكوين والكوين باكله يكون كلا فربنا وما يعرف فربنا وحيدار مركي الحسابي هذا الا بقول قرنوات نفسيا الا كل دار يومالي نحييه وحاولي ان قفك وواحد يسبب وواحدة قبل كره أصبوا استعمال عملة سو عملة وحاوية مال وجدته حساب بفرايا وهندي سيد كجرته هندي أسنا ومبعنا بلدي إنه كفرته ومبعنا مالك لإنه كفرته كليه يقول عنها إنه ويب سيد كبيره كدنا وماشا كسما يستو وحلو يقعنا والد كاس أيوكو أرسنا يا حوليسا حبض بيتكوين كأه لابد يسجل في واحد ببيع إذن هل أي حبض يقول لك حبض $1 هل كي دولار أنت سيقول لك مية لابد يتضمن تمرك بلاقيس $1 بيجاتي أيام يلي كدنا وحي حتى جاتي إلا $6 $1 لعبت نوع عاصة أحكام شرعي محققة شرعيga inta la gaarin in waxa weey la isweydiiyo iyo sharciga muxuu ka qaba waxa markoona la isweydiin leh arinkan ma arin waxa weey umlad ah ma arin waxa weey iska fadhiis ma arin waxa weey umlad ah oo waxa weey dadku ay ku tacaamulayaan mise waa arin waxa weey loo baahan yahay in shariicada loo bandhigo marka hore wax kasto lacag ah oo qiimeen ah inta insan lacag noqon 3 shay waa in laga helo waa in noqotaa wax wasiib ah oo anigu shaati baan haystaa waxaan gabar rabaa mobile qofka maxaa marka hore ku iibin raba hadaan raba inaan iibiyo shaatigan oo mobile-kaas aan gado waa wax wasiib inaan helo alaabtii aan heeyo inaan iibiyaa kadibna aan lacag hela si lacagtaas aan ugu iibsado wax kale waa in wasiib noqotaa وإن المقياس لا هاي أو وحده قياسه مقاك يبسنسا قلنكا لو بقرو شيلين أما $1 أما $7 أما $4 وحده قياسه إذا أنك أقول الله مدخر أو وحده نبته أنت مقرو قربا هستا شبقرو قربا هستا وواح أمريك ويالو أعدد الله هاي ينكرته صدح ذا الشيء لجهل ما يأركان أو حتى سوء أصبون عليه هذا أنك سيدا يعني وحاضنا كوو سيدراي عمره كستا أما واحد كستور له وحوي متاجرين وتجارة على بيع مشتر له سميه وحيقوبها أنت وحلا إصدار وحن انتكي مالين يا له دولاركو مرايكن باله يانا مكا صوغشو السلطة الأساسية هي سياسة يوغندا ayaa sultada kore Bank of Uganda ama Central Bankiga ayaa wuxuu maamulaa lacagtan adiga isticmaalayso hadiga lacagtan waa lacag qof kasta uu ku tacaamuli kara ana sameyn kara inta mashiin soo gato ayaa inta daabaca suuqa ku sii deyn kara laakiin maxaa lagu kala garanayaa waxa lagu kala garanayaa waa bangiga dhaxay oo wadan kasto ayaa qiimaha goynaa sida daraadeed bangiga dhaxay ayaa garanaya inuu yiraahdo qiimaha hadda lacagtana intaana way maraysa haddii bangiga dhaxay uu daciifo ama meesha uu ka baxo waraaqdan adiga jeedka hadda kaaga buuxdo macno ma laha sida aad ka aragtay Zimbabwe iyo meelaha kale $200 milyan inaga inflation ba ku dhacay wax la yiraahdo haddaba hadday sidaas tahay waxa loo baahan yahay yaa lacagtan bitcoin-ka oo adiga internetka inta gashay oo aad ka gabatay meelaha kale yay u noqday yaa sameeyay yaa darin loo qabsanaya hadduu khasaaro xoogna ku yimaado yaa loo raacanaya ma jirto dad majhuuliin weeye nin Nakamoto la yiraahdo oo yaabaniisa ayaa aasasay waagii hore wax badanna uu sameeyay istaarado uu leeyahay waa amaan kadibna rag kale ayaa ku soo biiray oo fara badan
dadka ku soo biiray haddii beri khasaare ay timaado uma qabsan kartid waayo wax legal tender ah weli ayaga xaggooda kama ahan inkastoo dowladaha qaar ah Jarmalka iyo Japan oo kale ay u aqbaleen in la furo meelo bitcoin ah kadibna dadka laga tacaamuli karo oo lagu bedelan karo dollarka lagu bedelan karo waxa weeye poundka iyo waxyaalaha la mid ah waxay qaateen in lagu iibsan karo waxyaalaha qaar suuqyada qaar waa la ogolaaday laakiin si kastaba ha loo ogolaado iyo wax badan ha la fuudeeyo waa sax laakiin waxaanu ka hadlaynaa ma aha xaraam iyo xalaal kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa marka hore lacag ahaan mala waxa weeye mala sugi kara in arrinkan uu lacag yahay oo kadibna uu kala galanayo hadduusan lacag ahayn wuxuu noqonayaa silca ama wax loo yaqaano commodity ama silcada waxa la yiraahdo waa wax qofka wax ku iibsanayo hadday silcad tahay dib ma laha laakiin dadkii sameeyay ama dadka ku jiro oo asaas kale waxay leeyihiin silcad ma laha waxaad u baahan tahay saddex shay kaliya markaad ku tacaamulaysid waad garatay dollar ma ka siisatay maalan 18 kun buu malaya xabad baa gadatay inaad qof kale u dirto waxaad u baahan tahay waxyaalo yar kaliya magacaada iyo raqamkaada sirriga iyo qofkaas walletkiisa wallet baa la isugu diraa walletka waxaa la weeyay qofkaas meesha loogu dirayo inaad ku dirto taa waxay keentay in dadka dhaco kuwa dadka waxa weeye xooga ama ilmaha yar waxa weeye afduuba inay isticmaalaan bitcoin taasoo keentay khasaaro fara badan waayo qofka waxaan ku tacaamulaya waa majhuul midda labaad bitcoin khasaaraheeda marka laga hadlayo waxa la halmaala waxa la leeyahay koronto la'aan lacagtan qiimo ma laha مثلا واتكتي waxa adoo marayso lacagta bitcoin baa haysataa waxa maraysa meel baadiya Afrika kamid ah korontadii ma jirto wax la yiraahdo charger iyo waxa dhawaa ka dhamada internet ma jiro haduusan waxa soo dhan jirin macluum waxa weeye baashaan qiimo ma laha weeye dhib ma laha taas waxa wax dhibaato ah ma laha laakiin korontada ay isticmaasho bitcoin sanadkii mise bishii miya waxa lagu waxa weeye xukumo ilaa 1 bilyan oo dollar inay tahay haddaba meesha waa khudbo uma imaanin in axkaamta iyo wax inaan ku faafiniyo fatwada arrintan oo kale waa arrin soo dhacday naazila ah arrintu markay naazila tahayna waxay u baahan tahay culimada majmac al-fiqh ama majmac al-fiqh wadamada kala duwan iyo culimada kala duwan oo waaweyn inay fariistaan kadibna xukun ay soo saaraan maadaama arrin muhiim tahay oo ku saabsan naqdiga iyo lacagta dadku ay isticmaalayaan wixii fatwo ah oo caddeyn ah culimadaas ayaa fariisanaya welina lama fariisan laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan muujino waxyaabaha khasaarada iyo faa'iidada waxyaalaha khatarta waxa weeye sida uu 18 kun oo dollar hal mar u tagay ayuu hal mar wuxuu u tagi karaa halkii dollar warkii hore ah kadibna hadda tadaawulka badan oo jiro ragga taageera waxay leeyihiin mustaqbalkaba xaashidan iyo waxa oo dhan waa laga tagayaa oo waxa loo noqonayaa arqaamtaas in la isticmaalo hore u bilaabatay oo maanta wadamada badana Soomaaliya iyo wadamada Yurubta wax xaashiyaha lama qaato oo maxaa isticmaalaa in peesada Kenya laga isticmaalo ama zaad ama waxyaalaha kale waxa weeye la isticmaalo wadanka Soomaaliya ayaa la isticmaalaa taas wax dhibaato ama la mid raqami ah waxa laga hadlayaa waa taas asal bay leedahay 500 dollar ayaa mobilka kugu jiro laakiin shirkadda mobilka markaad u tagto 500 waa helaysaa bitcoin-ka waxa laga hadlayo waxa weeye waxa kugu jiro meeshaada maba ahan dollar laguma qiyaaso